degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa saaka aroortii hore ka qarxay dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed oo wada degta gudaha degmadaasi iyadoona ay wararka sheegayaan in dagaalkaasi uu ka dhashay qasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku dhintay 5 qof oo ka wada tirsan dhinacyada halkaasi ku dagaalamay iyadoona ay wararka sheegayaan in ay jiraan qasaare soo gaaray dadka shacabka ay ku dul dagaalameen labada maleeshiyaadka maanta ku dagaalamay gudaha degmada Walaweyn ayaa waxaa la sheegay inay isku haystaan jidgooyo taala gudaha degmadaasi sida ay sheegayaan dadka deegaanka mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacada kulmiye ayaa wax uu ka warbixiyay dagaalka saaka ka dhacay gudaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose isagoo sheegay in dadka shacabka ay ku jiraan guryahooda oo aysan jirin wax dhaqdhaqaaq oo ay sameynayaan maadaama halkaasi ay ku dagaalamayaan laba maleeshiyo beeleed saaki waaga markuu bariyay ayuunbay meeshan wadada laamiga ah ee Muuri ay waxay ka bilaabatay xabad waxaana isku haysta laba maleeshiyo beeleed oo hal beel ku aftirsada annagana guri kama bixin oo nin walba dhulka ku haya qasaare iyo wixii kale annaga hadda ma sheegi karno oo waxay ahaatay waa annagaaba asla caari ah wallaahi waa taasi waa qoryo la kala qaatay ayaa qoryihii illi shuciye ay maxay ahayd qolo ka diidiitay ladaha meesha marka qoryaha laga qaatay ayaa maanta marka meesha ka bilowday marka had ilaa ay xaddu socdaa dagaalkan odayaashii deegaanka oo beel kasta leh odayaashii dhaqanka oo beel kasta leh ayaa hadeer ku wadnaa inay ku baxaan oo bal haddii wax laga yeelay ay wax ka keenaan dagaalkan waxaan u malaynayaa in adiga gacan saddexaad kale ay ku dhex jirto ayaa macnaha lagu qiyaasayaa wallaahi meeshay noqoto kulli ma naqaano laakiin dadkan markii arrintooda ay toosto ayaa haddana dib loo soo go'daa waxaasina waa wax adiga arrimo kale ah dhanka kale Maxamed Cumar Dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose oo la hadlay idaacada kulmiye ayaa wax uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi kaas oo ka soo cusboonaaday saaka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose runtii cali waa arin aad runtii naxdin u leh marwalibana murugadeeda iyo maaragtay kiraayadeeda ay nagu reebayso haddaan nahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed maanta matala maaragtay haddana hadda cadee dhibaatadu marba gobol marba deegaan marba tuulo meeshii la yiraahdo ayadoo dalkii oo dhan isku mid ay tahay dhibaatadeeda si maaragtay wada jiraan oo taabanayso haddana gobolkan Shabeellaha Hoose in muddo dhibaatadiisii soo taxnayd marba isagana inay ka maaragtay ay ka faracanto problem horle iyadana waa shida kale oo iyadana annaga xanuunkeeda nagu gaara marka degmada Walaweyn oo runtii degmaan aniga ku soo barbaaray ee aan ku dhashay ku weynaaday wax ku soo batay deegaan maartay ahaan ee koonfur galbeed marka laga yimaado ay tahay runtii meel aad iyo aad dadkii ku noolaa aan garanayo iyo dad nabadeedsi ay u ahaayeen oo tacbata ah iyo qaar xoolo dhaqata intaba nabad lagu wada joogay in hadda dagaalo wixii sagaashameeyadii iyagana ka dambeeyay ee dhowr jeer soo noqday waa arin iyadana aad runtii xanuunkeeda u leh meel waliba dabka ka shidan daalmo baashido hayo daalmiintaasna la iska wada qabto deegaan walba ha ku noolaadaan guud ahaan dalka gaar ahaan hadda deegaankan Walaweyn ee saaki diiladu ay ka taagan tahay iyo meeshii lamid ahba sidaasaan ugu baaqayaa ilaahina waxaan ka rajaynayaa inay tawfiiqda maartay nabada waafajiyo ayagana ay rabbi u toobakeenaan ee ay ku dhaqmaan maartay daris wanaag haddii ay dad walaal ay yihiin oo muslim ahne inay isu damqadaan oo dhiiga ee maartay xaaraanta ee uu ku daadanayo ciqaabtii Alle iyo caradiisa si ay rabbi aysan ugu dhicin maartay inay ka waantoobaan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa inta badan ku soo laabtay dagaalada u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed kuwaasi oo ay ka dhashaan qasaare kala duwan iyadoona bilihii u dambeeyay ay halkaasi tageen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo halkaasi u tagay sidii xal looga heli lahaa dagaalka ku soo laabtay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose